السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادكين عبد الفتاح كسر دوائر كنال كين أخون سيدو أونلاين أكاديمي ما أنتو حنقادن دونا سيشن حسله لسعة ونكسن. As we are aware, san wadogsunay, we are the youth of the country. Waxanay dhalinyarta wadanka, and we are waxanay the leaders of tomorrow. Hogaamiyaasha beritoole, and you see what aragtaa how our country sida wadankeena is getting distraction uu bursan yahay. So that what must we do? Maxaan ugu waajibaynaa sameyno as to survive san u badbaadino our motherland dhulkeena hooyo and its population iyo shacabkiisa. That's right, midaas waa sax, but laakiin I don't see ma arko individual way wada gaara to survive aan ku badbaadino our motherland dhulkeena hooyo and its population iyo shacabkiisa except markii laga reebo Islamic religion judgment xukunka islaam waxaan ka ahayn. Do you believe ma aaminsantahay if we act hadda ku dhaqano the Islamic religion diinta islaamka to get out inaan ka bixino the prolonged story sheekada ku dheeraad in the country wadanka? Of course, dabcan I believe that midaas waa aaminsanahay the most distressing shay ugu badan burburiya in our country wadankeena isklaan waa qabiil. So saadaradeed, what solution do you have? maxaa xal u haysaa for clan issue arrimaha qabiilka? That easy, midaas waa iska fududahay. Clan can't be national. qabiil qabyaalad ma noqon karo. We will show waan tusin doonaa the right way wadada saxda ah of the Islamic religion diinta islaamka. Wuxuu leeyahay thank you waa mahadsantahay. B wuxuu leeyahay you welcome adigaa mudan. arday sidoo kale waxaan ogeysiinayaa kanaalka inuu yahay online private oo online ah. cashiro si joogta ah sabti ilaa arbaco cashiro si joogta aanu qaadan doonaa insha Allah. kanaalka la soco haddaad tahay qof jecel inaad baratid luqadda ingiriisiga. sidoo kale descriptionka waxaan kuugu reebay numberkayga haddaad rabtid cashiro dheeraad iyo koorso dheeraad ah meesha ay la soo xiriiri kartaa insha Allah. waxaan rajeynaa khayr la dadaal insha Allah.